بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. إن شاء الله ما توحين قلنا lecture كيني صدحية تبناد عشرة كوسابسان structural modeling. عشرة هو إحنا طبعا كوسارقني قابك إنه عشر كوجودن بينك كقصة هذا لنا interface كبرامج كإيتابس وشقيه. sidoo kale waxaynu soo baranay sida loo define gareeyo dhammaan materialskaaga, sida loo define gareeyo dhammaan frame sectionskaaga, sidoo kale sida loo define gareeyo dhammaan slab sectionskaaga. mid kasta waxa looga baahan yahay iyo mid kasta qiimaha la gelinayo qaabku ku yimi iyadoo si faahfaahsan oo detailed ah ayaynu uga soo hadalnaa. casharadaas waxa ka sii horeeyay casharo kale oo aynu kaga hadalnay qaabka DXF ka leftigiisa loo diyaariyo. marka hadalkan waxa inoo yaala filekeeni DXF-ka hadaynu qaybta aynu fiirino layerska aynu samaysanay waxaad arkaysaa inaynu samaysanay layer kala duwan ay kamid tahay etab aynu usoo gaabsanay ET B2 alif oo waa maxay beam thick waxa weeye widthgiisu yahay 12 iyo mid waa maxay 25 uu yahay. sidoo kale tana columnskiina aynu define garaysanay saasoo kaleeto aynu define garaysanay waxa loo yaqaan live load aynu define garaysanay FS aanu gaabsanay flat slab oo waa maxay thicknesskeedu uu yahay 20 cm. sidoo kale waxaynu define garaysanay layer kale oo u baxsanay ET opening. okay aynu ugu talagalnay meelaha manaawirta aynu ugu talagalnay in hawada ama waa maxay ventilationka guriga aynu waa maxay design garaynayna aynu adeegsano. sidoo kale waxaynu define garaynay wax loo yaqaan rigid iyadana waxaanu arki doonaa insha Allah iyadoo si faahfaahsan markaynu hadirtaan modelkan gudaha u sii galno. okay marka maadaama casharada hore aynu ku soo aragnay sida aynu marka hore aynu interface-ka uga shaqeysano, mar labaad baan waa maxay isla step-ka hal mar ku soo celinaya laakiin asagoo boobsiisa dhammaan waxaan define garaynaya dhammaan elements-keena aynu haysano sakashinteeni iyo waa maxay soo hagaratay material-keena. kadib waxaynu soo dhex dhigan doonaa aynu file-kii DXF-ka aynu diyaarsanay barnaamijkeena etabsiga. okay marka ugu horeysa sidaynu isla soo baranay waxaan dhahaynaa new model. okay model cusub waxaanu dhahaynaa waa maxay built in aynu dooranayna kan waxaanu dooranaynaa aynu matrix MKS kuwan steelka waxba isku taaban may kana waxaanu ka dhigan doonaa aynu PS97. okay ayaan saa u leeyahay. okay waxaan dooranayaa waa maxay plank ayaan dooranayaa. marka mashruucaaga wuxuu ku leeyahay marka ugu horeysa waxaad ii sheegtaa intee grade lines miyaad isticmaalaysaa. may grade lines uma baahni laana waxaan isticmaalayaa ama aan kusoo diyaarsaday filekayga asagoo dhan DXF-ka. marka waxaan laakiin aadaya dhankan aynu waa maxay historyga ama waa maxay inta dabaq uu yahay barnaamijkeena aynu waa maxay ka define garaynayna. marka waxaan dhahayaa custom iyo u sameeya. okay waxaan dhahayaa aan halka ugu horeysa waxaan dhahayaa مثلا basementigi ama مثلا ground floor waxa basement u sameyn mayno ground floor ayaan saa u leeyahay aan kadibna waxaan leeyahay first floor iyo second floor. okay saas ayaan u leeyahay. marka kan kale uma baahni aan floorkan roof baan leeyahay مثلا roof. okay roofkeeni ayaynu saas ugu sameysanaynaa roof. okay marka wuxuu leeyahay height-ka ii sheeg hanaay ground floor-ka مثلا 4 mitir buu yahay kuwan kale مثلا 3.2 meelahaas aan ku ciyaaraya dhib ma lahan. height-ka soo hagalatay roofkeena 3 mitir u dayso waxaan ugu talagalnay roofka sheekhada wax loo yaqaano ama waa maxay slab-ka aan ugu talagalnay staircase-keena sax. marka wuxuu ku leeyahay waa maxay elevation-kaaga oo dhan waa 13 iyo 40 total guriga height-kiisu tagaya. okay no problem. waxa ku leeyahay marka kuwa kan midkeeba waxa rabtaa inaad ka dhigto master kuwa kale tan similar kula noqonaya yani hal mid hadii wax ka badbadalno dhammaan kuwa kale tan waa maxay automatic looga badalay. marka aan leeyahay مثلا kan ayaynu waxaan ka dhiganaynaa ground floor masterka kuwan kale oo dhan waxaan dhahayaa waxaad waxa weeye aad waa maxay dhammaan aad definition ka qaadataa aad ground floor ka qaad. okay casharadan hore baan dabcan soo sharaxnay dib ugu waqti badan ku dheeraan meynaa plank ayaan saa u leeyahay kadibna okay ayaan saa u leeyahay. okay marka sidaynu ku soo ballanay waxa uu ahaa marka ugu horeysa waxaan diyaarsanayaa waxa weeye interface-kii kadib baan waa maxay DXF-ka keenay. yani hadda maxaan ka wadaa yani مثلا caruusada oo kaleeto marka hore guriga la diyaariyaa waxa weeye aqalkii iyo waxa weeye wixii guriga marka loogu talagalay furniture-kii baa la diyaariyaa marka ugu dambeysay caruusada guriga la soo geliyaa sax. marka sidoo kaleeto hadda file-keenan DXF-ka halka inoo yaala وعروسديني اوكي وفاينل كيما ما حين soo xigshanaynaa marka hadda wali waxaan ku jirnaa waxa way gurigii baan soo diyaarinaa marka ugu horeysa waxaan u ballanay inaynu waa maxqaybtaan aynu marka ugu horeysa define garayno materialkeena kan 4000 psi ayaan modify dhahayaan
كان waxaan dhahayaa مثلا C25 ayaa waa maxay aan ku shubayaa مثلا waa maxay material magaciisa oo kale tan la baxay waana concrete okay waxa uu ku leeyahay waxa samaysaa aad waxa ii sheegtaa uu ku leeyahay wax loo yaqaan gamadaada ii sheeg ama wax loo yaqaan weight per unit volume marka halkan waxaad arkaysaa waa maxay unitka hadii aad fiiriso waa kilogram per meter cubic طبعا anagu waxaan ku shaqaysanaynaa ton force meter baan ku shaqaysanaynaa sax marka waxay noqonaysaa inaan hal mar cancel iska dhaho kana cancel iska dhaho kadibna aan soo soxo unities ka qeybaan ka saxay qaybtan hoose units ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay consistency unities okay waxaan leeyahay length-kayga waxa uu yahay meter okay force-gaygana waxa weeye waa tan force kana temperature-ka waa maxay celsius okay saas ayaan okay u leeyahay marka hadda mar labaad baan dib ugu noqonayaa material ayaan saa u leeyahay kadibna waa maxay 4000 ayaan waa maxay saa u leeyahay aan halkan waxaan dhahayaa C25 yani waa maxay concrete waxaan ku shubayaa aan rutbadiisa ama waa maxay strength-kiisu yahay 25 megapascal okay marka hadda wuxuu leeyahay hadartan waxaad ii sheegtaa weight automatically waxaad arkaysaa waxa weeye inuu ku leeyahay ton force meter way marka aan leeyahay gaamadeeda waa 2.5 waa macruuf طيب wuxuu ku leeyahay elasticity-ga ii sheeg elasticity qaabkan waa maxay u xisaabinay video ka horeeya aad ku arkaysaa insha Allah waxa 12 600 okay numberkaas waa maqaabkan ula soo baxnayna dabcan hore baad u arkaysaa waxa uu ku leeyahay waxaad ii sheegtaa aad wax loo yaqaan design-kaaga teebu noqonaya marka waxa uu baahan yahay maxay FCU uu baahan yahay marka FCU waa maxay 2500 oo waa maxay ton force meter ah okay marka okay ayaan saa u leeyahay kana okay ayaan saa u leeyahay dhammaan hadda material-kayga saas waa maxay igu define garaysan yahay okay ayaan saa u leeyahay kadib waxaan define garaynayaa aan wax loo yaqaano tan mar baan dib u soo deganayaa sectionadeedii sectionka koobad frame sectionka okay kuwan marka hadda u baahanahay no uma baahnayo section cusub aan sameysanayaa marka add new property baan leeyahay waa concrete baan leeyahay aan kadibna waxaan leeyahay marka sectionada waxaan rabaa inay isku mid noqdaan sectionada halkan inoo yaala okay aan layeradii aynu halkan ku diyaarsanaa okay marka waxaan haysanaa aynu marka ugu horeysa beamka laba nooc 25 iyo 2 alifa columnska hal nooca flat slab iyo waa maxay wax loo yaqaano live load-kii opening-kii rigid-kii iyo waa maxay marka halkaana wuxuu yahay reference aan dib ugu soo noqonayaa markasta okay marka aan dhahayaa waa maxay horta beams-ka marka ugu horeysa aan cabira waa maxay sheeganaya marka hadda waxaan galay waa maxay frame section-ka waxaan dhahayaa B12 marka hore aan soo wax galata ma define garaysanaya marka waxaan leeyahay waa maxay depth-giisu waa imisa waa 0. مثلا 70 cm ayaan depth-giisa ka dhiganaya okay طبعا marka depth-gan hadeertaan waxaan sameynayaa waxa weeye iftiraad assumption ma marka hore sameysanayo okay markaan analyze gareeyo hodowti design-ka marka aan tago baan waa maxay waxaan soo saarayaa aan section-ka oo dhameystiran aan design-ku waa maxay laba shay baan kula soo baxaynaa madana waxaan kula soo baxaynaa waa area concrete waxaan kula soo baxaynaa waxa loo yaqaano area steel marka adeertan waa maxay assumption weeye marka adeer waa maxay kan kale tan waxaan leeyahay 2 alif waa maxay depth-gana waa maxay wirtigana uu yahay okay marka halkan wuxuu ku leeyahay waxaad ii sheegtaa aad wax loo yaqaano stiffness-kaaga intee buu noqonayaa marka stiffness-ka hadda dib baan u dhiganayaa aan okay baan saa u leeyahay kadibna waxaan leeyahay kan laftigiisa ayaan copy ka qaadanayaa add copy ayaan saa u leeyahay marka stiffness-kan ii xasuusnaada last-iga ugu dambeysaan waa maxay wax ka bedelaynaa aynu hadda waa maxay kan hadda waxaan dhahaynaa isla asagii way laakiin waxaan u sameynayaa waxa weeye 25 magacana waxa weeye waa B25 waa maxay waa beam width-giisu uu yahay 25 cm marka ana magacan ula baxay dabcan magaca waa property name magac adaa la baxaya soo wax garatay ma Soomaali ku qoro waa maxay English ku qoro waxa jeceshahay ku qoro adiga wax uuna todoti aad ku garato soo wax garatay maaha aad markii aad model-ka sameynaysa loo baahan yahay bas magaca ula bax laakiin aniga hadda ana sample-ka u sameystay okay waxa way aayad ah soo degtay ma haynan waa maxay aan markaas B25 iyo B12 aan qorayaan okay laba beam baan waa maxay ku define garaystay marka hadda war labaad waxaan define gareynayaa waxa loo yaqaan column kan define garaynaya waa kana waxaan dhahayaa waa maxay column-ka hadeertaan 10 times 10 column waxa aan define gareynayaa 10 cm ah sabab waa maxay aan u sameynayaa aan waxaan u sameynayaa waxa weeye hadda dabcan waxa aan sameynayaa waxa weeye analyze-kii aan sameynayaa sax wali design-kii ma aanan gaarin wali area concrete-kii area laba aana soo bixin waxa loo yaqaan steel-kiisa marka ugu horeysa section-kii ma haysto column-ka sax maadaama aan section-kii column-ka aanan haysan waxa waxa kaliya oo waxa weeye ii bannaan hadeertaan waxa weeye in aan meesha aan section-ka aan waa maxay section yar oo thin ah oo khafiif ah aan waxa weeye soo wax garatay maaha aan doorto si aan waa maxay hodowtii aan ula soo baxo waxa loo yaqaan FZ
barnaamijkan e-tabs oo dhan maxaan dhahnaa oo isticmaalayna inaan la soo baxno fz marka ugu horeysan interface ka soo sharaxayna sax marka fz ka markaan la soo baxno mid kasta waa maxay fz kiisaas aan waa maxay ku design gareynaa awoodiisa uu qaadi karo column-kaas aynu kula soo baxaynaa section kiisa iyo style-kiisa okay marka hadda mid kasta waxaan siinayaa waxa weeye thickness khafiif ah soo xagaratay ma aysan ba ishuba arki karin 10 cm enough ay ku tahay ay marka waxaan sameeynayaa waa maxay modify baan leeyahay laakiin waxaan leeyahay waxba waa maxay ma siinayo wax loo yaqaan mass iyo weight labada midna 0 ayaan leeyahay mid kasta waa maxay 0 ayaan leeyahay okay marka okay ayaan saa u leeyahay waxa iigu haray baan ku yiri mid kasta waxa iigu haray modifierska iigu haray okay marka waxa ii haray oo kaleeto waxa loo yaqaano rigidka marka maxaynu dhahnaa aynu sababta in rigidka u sameeysanayno waa in aynu beamkii aynu ku soo iyo waxa weeye column-kii inaynu waxaanu sameynaynaa aynu frame kaleeto ama section kaleeto oo ka awood badan oo waxa weeye ka inertia badan soo waxa garatay maaha labadaba column-ka iyo beamka si waxa weeye culayska ka imaanaya beamka automatically waa maxay inertia ahaan intuu ku qaato rigidka waa maxay uu gudbiyo column okay marka muhiimadda aynu ka leenahay waa taas iyadoo faahfaahsan hore baynu soo sharxanayn marka hadda waxaan dhahayaa waa maxay another new property column okay concrete waxaan dhahayaa rg baan soo gaabsanayaa rigid okay kan maxaynu sameeynaa marka depth waxaanu siinaynaa waa maxay مثلا aad khafiif u ah si waa maxay section aad khafiif u ah waan siinayaa si waxa weeye ay ilma qabati u noqoto ay aslanba wax yar oo thin ah teeda kale tana modifiers kan imaanay waxa leeyahay mass iyo weight labadaba 0 ay yihiin waxba ima lahan sidoo kale tana waxa aan siyaadinayaa waxa weeye waxa aan siyaadinayaa inertia-diisan siyaadinayaa marka waa 4 iyo waxa weeye مثلا 4 milyan baan siinayaa okay inertia-diisan siyaadinayaa okay si waxa weeye uu culaysku dhan asagoo dhati uu dhankiisa u soo jiito marka copy ayaan saa u leeyahay mid kasta inertia-diisa control z control v marka waxaan sameynayaa waa maxay inertia-diisan siyaadinayaa bas inertia-diisa bas baan siyaadinayaa laakiin waa maxay waxaan iri waa maxay mass weight iyo waa maxay mass iyo weight labada midna ma lahan okay okay aan saa u leeyahay marka adeertaan rigidkii ayaan asagana aan saa u define garaysay waxa igu haray intaas waxa ii haray slabski inaan waa maxay define garaysay marka hadda frame sectionska wax igu haray ma jiraan ay dib waxaan ugu noqonayaa file-kaygii halkan waa maxay columnski beamski flat slabki kulli waxa weeye waad arkaysaa inaan wax aan waa maxay igu harin wax loo yaqaano frame element marka okay aan saa u leeyahay hadda waxaan define garaynayaa section ayaan leeyahay kadibna waxaan imaanayaa slab section waxaan leeyahay add new property koowaad wuxuu noqonayaa s flat slab aan isticmaalayna طبعا flat slab thickness kiisuna uu yahay 20 nooca waa maxay materialku waa C25 oo midkaan soo define garaysana waa shell thin way okay marka slab hadana waa maxay automatically oo igu fadhiya 20 cm okay aan saa u leeyahay asagana waa okay aan saa u leeyahay dib aan ugu soo noqonayaa markii aan self modifiers kan u baahdo marka waxaan doonayaa udhatin self modifiers ka inaan waa maxay asagoo bila self modifiers aan run garayno kadibna ay natiijada aragno hodhotiina aynu self modifiers ka aynu waa maxay ku dabaqno natiijada aynu aragno farqiga aynu waa maxay la aragno marka asagana waa maxay saasaan u define garay waxaan hal mar define garaysanayaa mar labaad soo inta aan ka bixin live loadka aan define garaysto live loadka waxaan ugu talagalay balconies-ka inaan waa maxay farqi ahaan aan soo xagaratay maan u kala saaro numberka hodhoti laan hodhoti 0.3 baynu isticmaali doonaa wax loo yaqaan balconies-ka hodhotiina meelaha slabska caadiga waxaan isticmaali doonaa 0.2 tan force marka tan force per meter oo waa maxay duuli ah meter duuli ah okay marka waxaan dhahayaa waa maxay slab kan laftigiisa waxa ka qaadata copy ka qaado waxaan dhahayaa aan مثلا et live load ahaan baan u adeegsanayaa dhib ma lahan asaga marka maxaan dhahayaa thicknesskiisa waa isla waxaan dhahayaa waa maxay isla 20 cm baan u daynayaa laakiinse soo xagaratay ma waxaan urtay markaan loading ka sameynaya ayaan waa maxay aan ka bedelayaa loadkiisa okay waxa kale oo ii haray opening asaga uma baahnayn inaan waa define gareeyo maxaa halkan iigu haray oo kaleeto haddaan dib ugu noqdo file-kayga aana weli define garayn opening rigidki waan define gareey solid slab baa jiray asagana waa maxaa slabska hoos oo dhan solid slab bay ahaayeen marka asagana solid slabka waa inaan waa maxay define gareeyaa aan file-kayga dib aan ugu noqonayaa waxaan leeyahay define kadibna section ayaan imaanayaa aan slab section ayaan leeyahay aan slab section kadib mid kamid ah waa maxay مثلا aan copy ka qaato
هذا كان solar slab of thickness كسويها مثلا 16 بديه 14 بمركوري لكن 16 كدغانينا اوكي 16 سنتيمتر ayaan ka dhigayaan marka okay aan soo leeyahay solar slab kayga intaas igu dhibaan galasnay marka hadeertaan خلاص waxa weeye file-kaygi saas waa maxay igu dhameystiran yahay okay file-kaygi saas waa igu dhameystiran yahay maxaan u baahanahay hadeertaan inaan automatically soo qaato blank-kaygi ground floor kan imaado inaan waa maxay file-kaygi aan soo qaato loo yaqaan DXF ka aan kadibna halkan ku soo tuurtaa okay aan kadibna halkan ku soo tuurto marka qaabkee baan u sameeynaa hadaya مثلا file ayaan imaanaya waxaan imaanaya wax loo yaqaan import kadibna waxaan imaanaya wax loo yaqaan DXF/DWG file architectural plan okay ayaan click saa siinaya kadibna waxaan imaanaya aan مثلا meesha igu jiray project saamaha DXF-kayga waa kana halkan ayaan soo imaanaya marka nooca isticmaalayso waa maxay unit ka isticmaalayso meter buu ahaa طبعا صح xagee baa dhigaysaa ku leeyahay oo waxaan dhigayaa ground floor ka ayaan dhigayaa waan leeyahay kadibna okay ayaan saa u leeyahay aan cannot open DXF this one okay wuxuu ku leeyahay marka ma furi karo aan sababtu waxa weeye li'anno waxa ay iigu furan tahay AutoCAD halkan okay marka barnaamijka e-tabsiga badana waa barnaamij crack ah ka yeelimayo mararka qaar in aad laba barnaamij aad waa maxay مثلا isku dul furto marka AutoCAD ka kan waa inaan iska xiraa aan kan iska xiraya مثلا waa inaan iska leeyahay kanna waa iska xiraya si waa maxay barnaamijku si smooth ah ayuu soo kaco okay ayaan saa u leeyahay mar labaad ayaan waa maxay steps ku celinaya import okay waa kana meter ground floor ikmalay okay aan saa u leeyahay automatically waxaad arkaysaa waxa weeye waxa uu ii soo fariistay file-kaygi asagoo ordaya waxa loo yaqaano shaashad DXF-kaygi shaashad shaygu marka hadeertaan waa maxay waxa ii sawiran waa khutuud weeye soo wax galatay waa lines bas sectionada aan anigu hadda aan define gareynay kuma dabakhna waxa weeye file-kayga halkan okay marka 1 point halkan markaan joogayo si aan waa maxay casharada hore maadaama ay another video baan ka sameynaya video ku xiga ayaan waxa weeye aan ku dhameystirayaa si waxa weeye casharka videogiisa u soo badan waqtigiisa u soo badan dabcan